waxaan u mahadnaqayaa dhammaan intii ka soo shaqeysay barnaamijkan iska xirsaartay iyo intii ka soo qayb gashay iyo inta markay warbaahinta ka arkaan iyaguna kaalintooda ka ciyaari doona ee garab istaagi doona qoraaga caawa halkan maartay buugiisa la soo bandhigay waxaana ku booriyay dhammaan cid walba oo gacan ka geysan karta dhiirigelinta wiilka walaalkeena ee dadaalkiisu kaga duwan yahay kuwii hore aynu arki jirnay duruufaha nololeed iyo caafimaad maartay isku xisaaray inuu wax ka qabsado inaan heli doono kuwa far badan oo kale iyaguna arinta ka qiirooda oo garab istaaga ayaan rajaynayaa iyagana waan ku boorinayaa arinta buuga caawa halkan la soo bandhigay iyo qoraaga soo bandhigay waxay noo dirayaan 3 fariimood ta ugu horeysa waa arin bulshadeena aan ku baraarujinayo in badan ay ogaan doonto oo la xiriira saameynta dhibaatooyinka lama filaanka ah ee qofka ku yimaada kuna reeba xanuun uu la noolaanayo oo aan ka hareyn waxa la yiraahdo trauma xanuun nafsiyana oo qofka waxyaalaha dhacdooyinka traumatic ah ee xoog badan ku dhaca ay ku reebaan in xanuunkaasi uu jiro oo waliba bulshooyinka dhibaatooyinka ku dhacaan qaababka uga baxaan ay yihiin qaab sidan oo kale ah inay ka sheekeeyaan oo ay ka hadlaan oo duruufihii ku dhacay ay dadka la wadaagaan waxba hadaan loo tarin ila dhageysto oo muxuu bishinta loo qayno madaxa loo ruxo inay xitaa qayb ka mid bogsashaha tahay waxa cadeyn waa xafladihii ilaa hadda anigu aan mid ka soo qayb galay u dambeeyay dadka qoray markaan yar eegno caawa bugan aan isugu nimid waxa la yiraahdaa naafanimo waa maanka waxaana qoray walaalkeen oo xaalad ay ku timid isagoo oo sida inagoo kale sida caawa halkan aanu nimid oo kale farxad iyo xaflad la qabanayo inuu ka soo qayb galo laga yaabo casarkii inuu ballan iyo meel uu tagi lahaa iyo ciyaaro iyo ku fikirey ay maaragtay xaaladiisa ku dambeysay mid ka mid ah dadkii buugan ka hadlay caawa wuxuu ahaa Cabdi Haybe oo hore u soo bandhigay buug la yiraahdo meydka nasiya isagana Cabdi Haybe duruufaha qoyska uu ka dhashay ku yimid ee xanuunka ku reebay ayuu buuga kaga sheekeynay waxa la soo bandhigi doonaa buug la yiraahdo 2 jeer agoontow geerida aabahay iyo awowgay waxa qortay gabadh aanu maleystay 10 jir inay tahay oo ka sheekeynaysa sidii loo dilay aabaheed iyo awowgeed oo ka soo jeeda degmada Wardheer ee gobolka Doolo waxaan aad u rajaynayaa in iyadana Brito sidoo kale aynu maartay ugu nimaadno oo aynu qayb ka noqono bogsiinta maankeeda waxay ka hadlaysaa nin dhakhtar ah oo reer Wardheer ah oo la dilay iyo awowgeed oo isagana la dilay labadaba maartay kooxdii TPLF ay dileen waliba ninka dilay way garanaysaa magaca way sheegaysaa maalmaha kamida hadii ilaahay caafimaadna siiyo madaxda dambe ee deegaanka xukumi doonto oo Sheekh Ibrahim yaanu maleeyay noqon doonaan waxaan iyaga u soo bandhigi doonaa buug la yiraahdo dhibane iyo hogaamiye victim and leader oo aan caawina halkan kaga hadlo ana jecelayn si aanan u haraynin walaalkeen buuga uu qoray laakiin tilmaamaysa xaaladaha adag ee qofka soo dirsa saameynta noloshiisa ay ku yeelanayaan iyo sida waxyaalaha qofkaas uu dareemayo dadka caadiga ayna marna u dareemi karin waxa la yiraahdaa haweenka xanuunka soo mar waxa ugu xanuun kulul dhalmada yaa marmar la yiraahdaa in kastoo casrigu hadda uu wax badan xaliyay sidii hore malaha aan loo rifaadin laakiin raggu uu cabiri karaa uu qiyaasi karaa ma garan karo waa loo sheegi karaa qofku waxay la mid tahay ilk markuu ku xanuunayo ee dhakhtar weydo kale markuu meel lagu sar waa la oran karaa laakiin isagu qofkaasi ma cabiri karo mana garan karo marka waxyaalaha noocan oo kale dhibaatooyinka dad ku dhaca xarunka ay bulshada ku leeyihiin markaad fahantaan waxaad garanaysaan in buug fara badan oo kale ay soo socdaan markay fursad noocan ay timaado buug fara badan oo kale oo dadku noloshooda ay kaga sheekeeyaan kuwa aan buugta qori karin ee hibada buug qoraalka aan lahayna inay hadlaan oo ka sheekeeyaan tusaale guddiga tacadiyada iyo xaalmarinta dhibaatooyinkii dhacay xilliyadii hore oo hadda dhameeyay warbixintiisii waxay soo bandhigeen 5 buug
ومتك وير إلا أفر بقول حشود يهان ملينيا ويكجاه الله أنت عديد كذا عديان كا كرهان كوني سجال بقول سجاشين يكودي إلا يلا ما كوني يستوي تبانكي تعديد أصل كهذا لا يدد هذا فرق بدن وحاله دوكمنت جري إلا لحدا يسجال كون أو كيس لحدا يسجال كون دعضم ويسوي كذا ديل كوفسي يعرف مكله وحنون له guddi gaasi dadkii uu wareystay uu yiri imisa ogol inay shacabka hor tagaan oo laga duuba cajirad hadana boqolaal baa ogolaatay intii kala badankoodu xogtii way bixiyeen cadaalad iyo caawimaad labadaba way filayaan hadii waqti yimaado qaarna ay iska qanceen baa dhici karta oo ay maad ka qoosteen laakiin intii ugu xanuunka badneed waa inta tiri may anna waxaan rabnaa in la duubo oo annagu hadlayna dadku ay arkaan waxaan filayaa beejka taadiyada hadad gashaan gabdho fara badan oo hadlayo saas ay lagu sameeyay wad garanaysaa gabar Soomaaliyeed oo dhacdooyin iyada ku saabsan ka sheekeynaysa go'aanka ay qaadatay waxa ku kalifood garan kartaa dhacdooyinkaas xanuun kale saameynteedii markaan fahanno qodobka labaad ee tilmaamaysa hawsha intaan gelin yaani hadda Axmed Cabdi oo kale maalinka gimbood uu ka sheekeynayo maskaxdiisa waxaan anu ka cabirayay sida maalinkaasi ay ugu tahay isaga waxa la yiraahdo watershed noloshiisa maalinka wax iska la bedelay waxa yaab leh maalin dhaweeytay oo anigu aan wax qorayo islaha xilli aad waqti hesho bal iska sii diyaarso wixii aad qori lahayd waxaan ku bilaabay oo caawan isaga ula jeedo runtii taariikhda adduunku aniga waxay ugu qaybsan tahay ka hor 29 Oktoobar 2016 iyo kadib 29 Oktoobar 2016 adduunku wuxuu leeyahay laba waji adduunkii ka horeeyay 29 Oktoobar 2016 iyo adduunkii ka dambeeyay 29 Oktoobar waxba yima sheegaya sanadaha aan dhashay 1993 kuwii aan iskuulka dhameeyay 1999 kuwii aan jaamacadda dhameeyay 1995 kuwii ilmahayga weyn ay u dhashay 2000 kuwii aan xilka qabtay 2018 kuwa hadda aan joogo 2016 qaarkood waa wax ka horeeyay 29 Oktoobar 2016 qaarkoodna wax ka dambeeyay 29 Oktoobar yaani adduunku laba waji buu leeyahay waxaana asal u ah maalinka dhashay ma aha maalinka jaamacadda ma aha waa maalinka dhibaato xanuun badan oo kula noolaanaysa ay kugu dhacday waxaan garanayaa maskaxda hadda wiilka ka fadhiya maalinkaas adduunku ugu qaybsan yahay waa maalinku lixaadka way wixii ka horeeyay iyo wixii ka dambeeyay adduunku yihiin waa maadaama ay laba adduun kala duwan yihiin waxay markaa ina tusaysaa ahmiyadda ay leedahay inaan taageerno barnaamijyada dawladda ay ka hadasho ee ku saabsan hawlihii tacadiyadu inay noqon fayl la laabay oo meel la iska dhigay waayo wuxuu keenayaa bogsiinyo yuu keenayaa by the way adduunka meel gabad fal ka dhacay oo muxuu ahaayay in laga bogsado guddiyeenta loo asaasay oo dadkii la dhageystay oo hoola la soo fadhiistay raalli ahawna ha noqotay qofkii hal yiraahday nabad ay ku timid laga gudbay ma jirto waxaan aad ugu faraxsanahay in guddiga wada xaajoodka qaran ay maalmahan soo saareen in bisha June marka doorashadu dhamaatay kadib ay galaan ay hawlaha wada xaajoodka qaran dalka la galo waxa laga filayo in guddigaas soo saaro inuu noqon doono in ay sameeyaan hay'ad dib u eegta gabadh faleedii dhacay transitional justice mechanism guddigaas oo la mid ah kan inagu aan hay'adda ka sameeyay 3 sano ka hor si wanaag xilliga inagu wixii report ahaa loo baahnaa uu noo dhameystiriyo inaan geeyno bay noqonaysaa dadyo fara badan oo in cadaaladii ay u gooyeen ka goosteen dareemayana waxaan filayaa inay ka daba iman doonto marka taas ahmiyadda ay leedahay in maaragtay wixii hore gaar ahaan dadka dhibaatooyin ku dhaceen ay hadlaan buuqa qoran ayay muujinaysaa iyo dhibaatadii dadkeena soo martay baaxadda ay leedahay mar haddii inaan ka xanuunsanay caawa halkaa wixii ku yimid ay tahay dhacdada laftigeeda xog badan baan ka hayaa maxamed sheekh aadan wuxuu yidhi wuxuu ka hadlay xarig isla dhacdadaas maalinkaa dhacday dad badan loo laayay baa jira arday iskuul dhiganayso la ururiyo la toogtay baa jira oo shaqo ku lahayn kuwa zuwaay meeliya lagu xiray baa jira idinka banka tuuray leeyahay iyadoo 99% tuhunka jira uu yahay
in hogaankii nabadgelyada xilligaas uu bamka tuurayso oo mas'uuliyiintii xilligaa joogay oo dhan wax maaragtay laga sheekeynayay uu ahaa ujeeddo siyaasadeed oo ahaa markaas damac siyaasadeed iyadoo loo arko haddana in dad masaakiin oo fadban lagu dhibaateeyay oo labaataniye ay ku xidhnay zuwaay xabsi daayin lagu xukumay ayaan garanaynaa ilaahay caafiyo walaalkeen waxaan aad ugu ammaanayaa hal adayga iyo niyad adayga inuu ka soo kabto xanuunka inta leeg oo maanta uu inoo soo bandhigo dadaaladii ka dambeeyay noloshiisa tusaalena uu noqdo dhibaato kastoo ina gaadha in weli ay nagu hadhay awood aan kaga bixi karno dhibaatadii fariinta labaad uu inala wadaagay buugiisu maanta uu inoo tilmaamay bandhigani waa sharafta shaqada iyo inayna qiil lahayn mashaqaystanimadu يعني هدي سوى سيداس ما أنت قيس ولبا وحيش قيس كلية ما هي قيس كي دارين ألف تجيس يويل حنوصان أو ولا ليهين إنه يسوي مسؤول كي كوين مركع قامها له عجاها له يا روتي صوت توسية مقاحيها فردية شاكينا يا له شقة ما شرتو تصالح عدوية هاي مرة إن ما شقيس النبض أين قيلها وحب قف قبان كراوي هي هاي أنتوا دور عن النقطة طبعا روتي وفرين طلبات بوجيس وإنهم وجنا يويه تصدحات وبلشو وحي أستان ويا بوجيسو هل يحفلها هل كان سوون بعدنا بلشة صوب كمان يسا وحيل هذاك صوب مرتي وهذا نقص صوب بدنا يحفلها هلا نقص صوب بندقة يو بوجاك لقاري يو قوة كلا يو بوك فيريس كسيد بوك فير كجودي بوك فير كتشيجا أو كلا إن بوجاك لقاريو حسها الواقع بأقونتا قيمة الواقع بأقونتا وواحد مرتين موتشين يا بلشة صوب إنه صوب كمان يسو وهكذا صوبتي حفلتها الله حريرة تبرع عافيماتك ساكا رنتي وحنا لو جوجتي دخاتير قلي تضوا عروره او ودنها لغا هي وبلاش ku qalay waxaan u maleeyaa lixdii bilood u dambeysay inay yihiin teamkii saddexaad ee inoo yimaada waad garan kartaa ilmo beerka laga hayo ama wadnaha laga hayo oo danyar reer danyar ka dhashay oo maalin walba xanuunkiisa la tacaalaya wax xanuunsanaya hal ilmo ma fariinta saaka aan siiyo waxay ahayd maydaan qalin oo kaliya 7 qof waxaad qasheen ugu yaraan 7 qof sababta guri walba eelka ku nool iyo waalidka marka lagu daro ilmaha la xanuunsanaya 10 way ka badanayaan waxa kale oo soo badanaya iyaguna xaflado la xiriira isjacaylka iyo isdhexgalka bulshada oo ayna dawladda shaqo ku lahayn oo muujinaya waxaan la abaabulin oo dadka ka imanaya shalay gabadh wariya oo nimca samriye la yiraahdo ka timid Hargeysa walaalkiisii soo dhaweyntii jijiga dee annaga saan loo soo dhaweeyo kuma sayrnaba annaga boolis iyo rag ordayo soo istaagal iyo waxba aragnaa marka inay beenbeenta ma u qaadanaa soo dhaweyntu marka iyadoo ciidan iyo boolis iyo waxba toona wadan soo dhaweyntii kaliya laabtaay runtii waxay muujinaysaa isdhexgalka bulshada iyo jacaylka dadku Soomaalida isu qabaan wada runtii arrin aad loo dagaalamo marka lagu celceliyo waxa leeyahay doodihii maalmaha inay haystay oo in waxa la jaro oo suulowga iyo isdhexgalka loo dhigo dad aan dalkooda ku qanacsanayn iyadoo ay ognahay in isirnimadeena isirka aan nahay iyo dalka aan siyaasiye ka tirsanay wax isdiidanahay isdoodooyin been oo la abuurayo ayaa calaamad u tahay ilaan gabadhaasi haday qoraa Soomaaliyeed ay ahayn ama hadayna wariye Soomaali ahayn inta leelma soo dhaweeyay wayna ognahay waxa kale oo soo batay iyaguna oo aad iyo aad u muujinaya in dadkeenu soo bogsanayaan xaflado tartanka Quraanka Kariimka ah oo la qabto oo waliba dhaqaale lagu bixiyo dadka ku guuleystay yaa soo badanaya waxa soo badanaya xaflado la xiriira cuqaal iyo haldoor kala duwan oo deegaanka imanaya oo la maamuusayo oo dadku iskii inta uga hortago uu soo dhaweynay dadkaasi ha noqdaan dad wanaag lagu bartay ha noqdaan dad diinta lagu bartay ha noqdaan dad caan ah oo kale oo waxyaalo bulshada wax u taraya sabafalka oo kale qabta ha noqdaan علماء الدين يعقاش إنسان يدله تذكر سؤال أبولان يوم خرج بحيان سود ويان وهاي مجلس بلشوا الدمير كذي صارنا ولاني وهنكرر عزانا هاي الشيخ إبراهيم ويدي مساعد الله قبطارمها بلشوا ويجريه والروم ما يستاهلان سيدا هذا أيهين حبيس قاسي لكن واحد قطوس يسا الدجان كان تاريخ هذا دكتان ميزانيته جيبي ميزانية الدجان كان واحد هاي وهو قيبسان أمني يا اسمي وحلا ديسو ومركا مشاريع لي هذا مشاريع ده سيدون هالنقدان إيه وحلا ديسو ودوين يسكولي مالها لقى سميه إيو إن
muxuu ahaayey amniga deegaanka lacag loo qabto oo lacag badan ku baxdo waligeed waxaa badnayd amniga hadda ka hor maadaama amni darro ay jirtay bulsho kastana waxaa lagu gartaa heerka caafimaadka bulshadeeda kolba investmentiga iyo waxa ay gelinayso arrimaha bulshada marka waa la gaaray xilligii maadaama magaalooyinka soo bateen waa la gaaray xilligii dib loo eegi lahaa falsafada ama aragtida arrimaha bulshada laga qabo waayo waxa soo batay dhibaatooyinka arrimaha bulshada markay magaalnimada soo badato marka maaragtay shacabku meelo magaalada ku soo ururo dadka danyarta dadka xanuunsanaya dadka maskaxda laga hayo caruurta agoonta ee meelaha lagu tuuray waxa soo dhan waxay u baahnanayaan faragelin xagga dawladda inay ka timaado loo baahan yahay marka waa arrin u baahan lagu xisaabtamo waxaan rajaynayaa mustaqbalka miisaaniyadda inay ka turjumi doonto isbeddelka bulshada iyo ahmiyadda la siinayo soo nooleynta bulshada laakiin hadda ka hor bulshada in la ammaan geliyaaba la la'aa marka bulshada lacag lagu bixiyo lama hayn bulshadu inuu gurigiisa joogo oo la daayo yaa u ahayd wax qabad oo dhib loo geysan laakiin hadda mas'uuliyadda dawladdu waa inay ka gudubtaa arrintaas oo ay wax ka qabataa arrimaha noocaas aad iyo aad baan u soo dhaweynaa walaalkay markii dhaweeytay hadda ay xalimo hadlaysana runtii aad baan ugu bogaadinayaa waayo maalinka shir degdeg ah sababna lagu yeedhay habeenkan ballansanayn xafladda inaan tagno way soo sheegtay waxay tiri xafladii lama joogo kadibna waxaan idhi maarta bal maalinka aan qabano haddii la yidhaa sidan si dhaanta xaflad noocan oo kale inaan qabanana runtii iyadaa kaalin weyn ku lahayd aad iyo aad marwada xalimo in maaragtay aan dhibinteeda siino oo aan hal mar aan maaragtay bogaadino aan jeclaan lahay intii aan meesha fadhinay waan eegnay bal waxaan qaban karno dabcan barnaamijka dadka muxuu naafada ah si balaaran in loo qaato oo kolba qofkii ka soo horbaxa kaliya aan lagu koobnaan ayaa habboon maadaama kuwa isaga la mid oo fara badan jiraan oo halkan wiil kale uu fadhiyo kuwa kalena ay jiraan barnaamijyahan in loo qaato oo xagga cadaaladda ay noqoto weeyaan laakiin haddana shucuurta caawa jirto kale marka la eego waa waajib in wax laga qabto wixii markaa ka hor yimaada saadaradeed qoraaga anagu waxaan isla qaadanay dawlad ahaan inaanu xagga nolosha taageerada aan uga ka siinayno lagu xidho bangiga shabeelle iyo dawladdu nidaam bay leedahay ku caawin karto in taxi loo iibiyo muxuu ahaa nolosha uu ka helo marka bajaaj dambe way isdaayeen eeg marka xagga dee la yidhaah bajaaj way isdaayeen awshaana xafiiska madaxtooyadu qaato oo dhaqso uu gudagalo oo yaa habboon waxaa kale oo aan bogaadinayaa dr xuseen oo kolka horeba la soo xidhiidhay haddana xidhiir la sameeyey qolo jarmala sidii isagu uu dalbaday in iyadana laxaadka wixii laga qaban karo inuu macnaha sidan si ka fiican u socon karo labada cagoodba loo geliyo waxyaalahan casriga marka axmed oo cagii loo soo geliyey waxaan u malaynayaa dee wixii hore wax afar jibaarkeed inuu qaban doono yaa la yidhaa dhanka noloshana waxaanu leenahay bal ganacsatada iyo dadka ehlu khayrka halkan jooga hasal qaamaan oo wiilkaas wixii sidii guriga loogu dhisi lahaa hadday rabaan annagana qaaran annaga ururiyaan aan soo maraan haddaan labada annagu qaadanay mas-uuliyiintana hamar maraan xabiisyada laakiin in cid arrintaa qaadatana ay jirto maxaa ahayd yaan ugu baaqaynaa waxaa kaloo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa walaashin oo iyaduna runtii ka qayb qaadatay in muxuu ahaayey kor loo qaado isdhexgalka bulshada iyo barnaamijyada noocan ah tabaruca nooca dadka waxaan dadka dad wanaag u diran baa jira oo wax qabta oo isxilqaama yaa jira iyadana aad baan ugu mahadnaqayaa ugu dambayn ilaahay maaragtay deegaankiina deegaan nabadaha inooga dhigo waxaan aaminsanahay in maaragtay lagu guulaystay in deegaanka uu nabad noqdo in xorriyadda dadka la ilaaliyo iyadoo dhaliilo ay iska jiri karaan meel walba kuwa maamulku samaynayaan iyo kuwa shacabku samaynayaan dad wax tirsanayaan aan la waayin haddana marka run laga hadlo wixii shalay jiray iyo wax maanta jiray wax isku mid ah maaha insha allah wixii annaga naga dambeeyaana xilliga la gaadho waxaan rajaynaynaa in wixii aan anagu khaladnana ay toosiyaan dadkuna oo dib u noqonin meeshaan ka gaabinay xorriyadda meeshaan ka gaabinay horumarka meeshaan ka gaabinay muxuu ahaa isku wadka bulshada kuwa hore uga sii wada inay iman doonaan insha allah xilligeeda la gaadho laakiin
marnaba shalay wixii jiray ee deegaanka aynu ugu nimid ee ahaa argagaxa cabsida kala dhimashada bulshada inayna maarta aynu soo noqonayaan rajaynayna dad fara badan oo yiraahdo jira dadku haddu kala qaybsan yahay laakiin taa waxaan u maleynayaa in shacabku wax kala garanayaan laga dhaadhicin karin maalinkii labada wiil ee Soomaaliga ay qoryaha isu haysteen isdilayeen liyu booliisiyo loo kala qaybsanaa oo nalafee duurka la isku dilay maalinkaas umad way midaysnay qof kale dee waxaan u maleynayaa umad waxay ku midaysneed waaga qaaraankan u maleynayaa marka qaaraankan buu tabaya yani qaaraankii baa ka kala fakaday waxa u midaysnaa qaaraankii ay kala fadhaad moodaa laakiin umad midaysneed xilliga ma jiro korun laga hadlo man garan karno umad way midaysantahay macdeedu nisbad dhalilaysa ma adduunka markasta lagu doodaya siyaasadda waad khaldan tahay arintaas waa khalad halkaas ay ka dhacday sideen way taas kala qaybsanaa ma muujiso tartan bay muujinaysaa iyo xadaarad shalay laakiin taas ma jirin marka aad iyo aad u bogaadinayaa deegaanka ku taagan yahay waan guuleysanay 7 sano iyo bar kadib waan aaminsanahay himilooyinkii shacabka ee deegaanka badankoodu meel fiican bay haystaan koob ma joogaan laakiin dadaal fiican baa la sameeyay waxa dhimanna waxaan ugu baaqayaa cidda dawladda salugsanna inay danaheeda wax dhaafsiisan ka fikirto oo nacaybku una asaas u noqonin maamulka jirana una nacayb u noqon asaas wax hagaya kuwa dawladda salugsanna inuu nacayb u noqon asaasku xaqiiqada la sheego runta laga hadlo daliisha maartay sideeda loo soo dhigo inay haboontaan ugu baaqayaa xilli doorasho maadaama lagu jiro intaana waa dhex raacsanay raal naga ahaada waad maasantihiin salaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh